Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa cabasho xoogan ka muujiyay qaadashada sharciga qaxootiga ay bixiyaan dawladda Koonfur Afrika kadib markii ay wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan waaxda qaxootiga ay bilihii ugu dambeeyay soo rogtay sharci cusub. Animadii hore ee saaka ayaan booqday xaruntaasi si aan u ogaado hanaanka sharci qaadashada iyo cabashada Soomaalida, waxaana halkaasi kula kulmay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka cabanaya sharci la'aan, waxaana qaarkood ii sheegeen in ay ka yimaadeen meelo fogfog. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee sharciyada ka raadsanay magaalada Pretoria ee caasimadda dalkani Koonfur Afrika ayaa ii sheegay in dhibaatooyin kala kulmaan xarunta sharci qaadashada ee dalkani Koonfur Afrika. magacayga walaal Maxamed Axmed Nuur baa leeyahay. halkan waxaan u yimiday inaan sharcigayga qaato. sharcigayguna ilaa 10 sanaba waxa la garaacayaa 6 bilood iyo 3 bilood ilaa hadda la isiin laayo. maanta ugu dambaysan maanta igu roon tahay sanad la isiiyay. sanadkii la isiiyay waaniga imka intaan soo qaato ka soo baxay. marka Soomaaliya sharciga lagu dhibay wadankan hadda ugu xun waa sharciga. dhanka sharciga aad muxuu ahaade laga dhaliilaya. sax marka markaas ma iska hagaagi doonta insha Allah. dhibaatada waad iska aragtaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada iska jirta dalka waa laga soo xaray. dadkii wax cusub iyo wax hore isugu jiraan sharciga waa la siinaa, qaarna waa la siiyay, qaarna weli wax oo howlo oo loo qabanayo saddex wiil baan usoo laabanaya waa sharci weli ka mehel sidaad ogtahay halkan dhibaato weyn baa ka jirta dadka Soomaalida gaar ahaan. xaqiiqatan waxaan ognahay laga bilaabo 2011 ilaa hadda inay Soomaalida dib wadan u ka haystay. haddana dawladda South Africa sharci bay ku soo degtay dadka foreign-ka ah oo ah nin alla ninka macnaha Soomaali ah in uu marka hore wadan u imaado uu baasaboor ama warqad cadeen uu safaaradiisa kala imaado. once uu safaaradda warqadaas soo qaatana uu jagto u qaadanaya. sidaad ogtahay haddana dadku ilaa 6 bilood 3 bilood 4 bilood bay iskaga daba noqdaan. cidna geli mayso unless ay maaragta qof interpretiyaal meesha ka shaqeeyay waxay noqdaan ba aan lacag la siinin oo adoo wali lacag bixiyay 3 bilood iyo 4 bilood. maahan markii ugu horeysay ee Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika dhibaatooyin kala kulmaan sharci bixinta ay bixiso wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani Koonfur Afrika. waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dalkii dib loogu celcay kadib markii sharciga loo diiday. Idris Ahmed Gure, Kalson TV, magaalada Johannesburg, dalka Koonfur Afrika.